kumanaan iyo kumanaan ka mid ah taageerayaasha murashax aqooyan Khadar Cali Xakiin ayaa duleedka galbeed ee magaalada Cerigabo kaga hortagay wafdi ballaaran oo hogaaminayay murashaxa golaha wakiilada ee gobolka Sanaag ee astaantiisu tahay haanta aqooyan Khadar Cali Xakiin murashaxan oo ka sharxan xisbiga rajada shacabka Soomaaliland ee wadani ayaan si aan hore loo arag loogu soo dhaweeyay magaalada Cerigabo ee xarunta gobolka Sanaag murashaxan ayaa ka mid noqon doona murashaxiinta ugu saameynta badan ee gobolka Sanaag waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay waayeel waxgarad salaadiin cuqaal boqorro yaro haween iyo murashaxiinta xisbiga wadani uga tartami doona doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka iyo taageerayaasha murashaxa oo sitay astaanta gaarka ee murashaxa ee haanta maayirka degmada Cerigabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo waliba gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Sanaag waxaana ugu horeyntiba kelmad soo dhaweyn halkaasi ka jeediyay waayeel waxgarad aqooyan madax dhaqameed murashaxiin iyo taageerayaasha soo dhaweynaya murashax Khadar Cali Xakiin كبعدي سلام كبعدي هلكن waxaa lagu soo dhaweynaya xildhibaanka Khadar Cali Xasan iyo wafdi ballaaran oo la socdo si guud iyo miisaan bale oo ay ku gacmo furan ay ku jirto ayaan ku soo dhaweynaynaa ku soo dhaweey mudane halkan waxaan ka cadeynayaa oo dadka uga iftiiminayaa xildhibaanka magaciisa la yiraahdo Khadar Cali Xasan oo aynu beesha Jibriil Saalax soo dooratay oo isku soo raacday oo aan loogu kala hadin laguna kala maqlay munaasabada soo dhaweynta ay maanta u sameynayno musharax xildhibaan Khadar Cali Xasan oo waayeelka aqoonyahanka iyo waxgaradka deegaankiisu ay isku garteen markay dood dheer iyo falanqayn badan iyo turxaan bixin badan sameeyeen gudahooda ay garteen in uu ku metelo doorashooyinka golaha wakiilada soo socda cid kasta aad iyo aad baad u mahadsantihiin jazakallahu khayr guul baynu rajaynaynaa waa inaga 31 May iyo inaynu guuleysano Khadar guul baynu rajaynaynaa cod inaynu siino oo uu xildhibaan noqdo musharaxa Khadar Cali Xakiin ay ku soo dhaweeyeen ka soo qayb galno waxaan leenahay musharax soo dhawow ku soo dhawow gobolkii iyo dadkaagii waxaan ilaahay kaaga rajaynayaa musharaxnimada kula qabto alla ku guuleeyo beesha Jibriil Saalax magac lama miskiin ma aha baa soo sharaxday Khadar Cali Xasan waa soo dhaweynayaa waxaan leeyahay soo dhawow musharax gobolkaagii aad u sharaxnayd ku soo dhaweeyaan leeyahay oo soo dhawow Khadar waa nin gobolka anfacaya waa nin wax badan soo kordhinaya Hargeysana waa tirar jeelba lagu hayay ka muuqan jiray buuxa rag uma sinayn kol rag badan waa sharaxay laakiin rag uma sinayn Khadar number 1 buu ahaa waxa weeye hawlana haliga oo tii haanta ugu rida codkana Khadar waa lagu duceynayaa waxaan ku yiri cuud iyo calaf waa lagu dhinac galay xildhibaan sare oo dalka wax badan u qabtay sida la og yahay waa la wada og yahay soo wax badan uu qabtay ma ogidin ta dambay taran marka xildhibaan uu qaran inuu noqdo halkaas uu inoo fadhiisanaya waa soo dhaweynaa aad iyo aad boqolkiiba 500 baan ku soo dhaweynaynaa Khadar waxa weeye nin haliyeeya sidii raggii horeba sheegay hadalkii wax la yiraahdo hadal dabadii hayaan dabadiiba waxa weeye hadalkii hore u maray waxa weeye Khadar waanu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa Khadarow haliyey baa tahay cod baan ku haynaa halkiisu fadhiisanaya maanta waxaad moodaa inaanu si wanaagsan u kala reebnay odaygaasina Salebaan Nuur hawdu yar garoobay halkiisii maantana waxaanu soo dhaweynay xildhibaanka cusub ee bacda yar السلام عليكم ورحمة الله ku soo dhaweynaynaa musharaxa golaha baarlamaanka Khadar Cali Xakiin oo ka sharaxan gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Cerigabo xildhibaan waxaanu ku leenahay dalkaagii weeye gacmo furan iyo waji furan baan kugu soo dhaweynaynaa intaa weeye musharaxa golaha wakiilada Khadar waan soo dhaweynaynaa runtii Khadar waa haliyey kamida haliyada soo dhicin kara xaqa gobolka waa haliyey kamida haliyada wax ka tari karaya xaaladda maanta gobolkeenu ku jiro waxaanu u baahanahay inaan halbeeg qabiyaaladeed wax ku eegin aynu ku eegno yaa wax qaban karaya yaa gobolka wax u tari Khadar Cali Xasan Maxamed Nuur magac laga miskiin maaha waa reer baladahaygii waa u ducaynaya mid waa ugu ducaynaya inuu guulaysto ilaahay u dhiibo waa ugu ducaynaya midna waa uga ducaynaya xildhibaan markaad noqoto
inaanad xaqdarra ansixiyad noqon taana waa kaaga ducaynayna laakiin waxaan ku maanta loo kala hari maayo ninkii jira wuxuu yidhaanba faydniye waxba hay farin maanta waxaan ku idhi Khadar Cali Xakiin waa inay yaro aqoon-yahana ceergaabo xildhibaano fara badan ayaa laga soo doortay xildhibaanadaas dantooda waxaan ku maalintii loo codeeyay oo nin walba waxaan ku dantiisa gaaray ayaa ugu dambeysay maanta Khadar Cali Xakiin waa inay yaro aqoon-yahana waxaanu leenahay waxaanu halka ku soo dhaweynaynaa musharax Khadar Cali Xakiin waa nin aqoon-yahana oo ka mid ah musharaxiinta golaha u tartamaya golaha wakiilada gobolka Sanaag waxaanu soo dhawow waxaanu kaa filaynaa inaad wax badan ka bedeli doonto guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag aqoon-yahan Khadar Cali Xakiin ma aha nin u baahan qabiil nin u baahan degmada Ceergaabo waa nin u baahan gobolka Sanaag oo dhan waa nin aan filayno aqoontiisa iyo kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa inuu wax kaga bedeli doono golaha markuu tago anigoo ku hadlaya afka xildhibaanada golaha wakiilada gobolka Sanaag guud ahaantood waxaan soo dhaweynaynaa si furan xildhibaan Khadar Cali Xakiin waxaanu leenahay ku soo dhawow gobolkaagii iyo dadkaagii waxaad sidataa ahaan waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala haantaad sidato in lagugu wada rido musharaxan watiyo haanta ugu rida marka labaad waxa aan ka hadlaya waxa weeye waa soo dhaweyna Khadar dhammaanna waa la soo wada dhaweeyay xildhibaanada wadani dhammaantoodna waxay u baahan yihiin cod reer Ceergaabo codkana waxa ku dooranaysan cidii wax idin tar lahayd waxaan u malaynayaa doorashada waxaynu ka igeestoodina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Sanaag Boqor Faysal Cismaan Baraake iyo waliba maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyagoo ku soo dhaweeyay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag murashaxa da'da yar ee Khadar Cali Xakiin oo tartami doona doorashooyinka golaha wakiilada ee gobolka Sanaag isla markaasna ka tartami doona xisbiga rajada shacabka Soomaaliland ee wadani iyo farteen ma isu ekaadeen haddaynu bambaxno oo fartu meesha ka baxdo ama yaraato bambaxnu waa khasaare waxaan leeyahay murashaxiinta sharaxan golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka cid ay wax ka sugayaan waa idinka waxaan rajaynayaa bambixiina iyo fartiinu inay isku mid noqon doonaan subagaasixinka saafigaana waxa dhalaya waa sawdkeenna war sawdkeenna sohaanta kuma sugno waxaynu ka sugaynaa subag saafiya oo sixina oo aan lagu saxan idanka ilaahay maanta halka waxaynu ku soo dhaweynaynaa xabiibu malaayiin waxaad ka garataa xalay waxa laga dareemay magaalada soo dhaweyntiisa lagama seexan wadaadkii suxuurta sasay aad baan idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh eray baan ka tagay dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani waxaan xasuusinayaa haddaad maqli jirteen dad qalataa jirta saaxiibayaal waxa soo baxay cod qalato war cod qalatada maxay nooga ballana inaynu iska ilaalin aad baa u mahadsantii dhankiisana waxa halkaasi bulshada magaalada Ceerigaabo ay soo dhaweynaysa kala hadlay murashax xildhibaan Khadar Cali Xakiin isagoo uga mahadceliyay soo dhaweynta balaaran ay u sameeyeen wax ka badan wixii aad gobolka u qabatay qofku waa inuu isqiyaasa gobolkaaga maxaad u qabatay waxa jira mas'uuliyiin aan gobolka waxba u qaban oo la soo dhaweeyo oo halka kan lagu soo dhaweeyo xoog loo soo dhaweeyo laakiin aan waxaan dareensanahay inay tahay deyn ay igu leedihiin waa deyn waan iska bixin doonaa biidnillaahi alkariim waa deyn ay igu leedihiin waa deyn qaan ah waa qaan oo kale way igu leedihiin soo dhaweynta ay soo dhaweyseen inaan gudo oo waajibkeeda gudo waa waajib saaran weeye su'aashu waxay tahay maxaan doonayaa inaan qabto ama maxay tahay shaqada baarlamaanku guud ahaan laba shaqo weeye kow waa la xisaabtanka xukuumadda ee ah in sharciyada gabagabadana murashax iyo wafdigiisa ayaa lagu soo wareejiyay jidadka waaweyn ee magaalada Ceerigaabo waxaana shacabka magaalada Ceerigaabo ay tumnaayeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Ceerigaabo iyagoo u helanaa soo dhaweynta murashax xildhibaan Khadar Cali Xakiin Adnaan Cabdirashiid Cali